magaalooyinka Baydhabo iyo Bokool waxaa ka socda kulamo gaar ah oo ay wadaan saraakiil cusub oo Itoobiyaan ah oo saacada ka hor halkaasi ka degay soo dhawaada saaxiibayaal kulamadaas iyo waxa looga hadlayo iyo saraakiishan Itoobiya ee gaaray koonfur galbeed si gaar ah gobolada Bokool iyo Bay ayaan halkan idinku soo baahin doonaa qorshaha ay damacsan yihiin iyo wararkii ugu dambeeyay kulamadaas iyo gedo oo la filayo in saacadaha soo socda ay tagaan ayaan halkan idinku soo baahin doonaa Cumar Guuxayaan hay halkan waa galsan hadii uu muuqaalka idin soo gaaro si shar garay oo saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladan aragtidina nagu la wadaaga marka la soo dhawaada saaxiibayaal wararka ka imaanaya gobolada Bay iyo Bokool si gaar ah magaalooyinka Baydhabo iyo sidoo kale Xudur waxa ay ku soo waramayaan in halkaas daqiiqadii la soo dhaafay ay soo gaareen saraakiil sarsare oo Itoobiya ka socda kuwaasi oo kulamo gaar ah la qaadanaya saraakiisha Itoobiya ee horay uga sugnaa Xudur iyo sidoo kale Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi Bay waxaana la sheegayaa in kulamadan ay yihiin kulamo si gaar ah u quseeya saraakiisha iyo ciidamada Itoobiya ee ku sugan labadaasi gobol wararka ayaa sheegaya xogaha la soo ama la helayo iyo sidoo kale soo baxayeen waxa ay tilmaamayaan in saraakiishaas ay u yimaadeen dejinta qorshaha ciidamadaas Itoobiyaanka ah looga saari lahaa labadaasi gobol si gaar ah meelaha ay kaga sugan yihiin ee Baydhabo iyo sidoo kale Xudur iyo meelo kale oo ka tirsan magaalooyinkaasi hareerihiisa waxaana la warinayaa in saraakiishan inta uu sanadka cusub ee 2025 uusan bilaaban ciidamadan la filayo inay ka saaraan Soomaaliya sidoo kalena la rajeynayo in haddii Itoobiya ay ka qayb noqon karto ama ay ka qayb noqoto howlgalka cusub ee Soomaaliya iyagu ay joogi doonaan saraakiishooda iyo ciidamadooda laakiin hadda qorshuhu waxa uu yahay sida la sheegayna ciidamadaas ama saraakiishaas ay u yimaadeen sidii ay u dejin lahaayeen qorshaha ka bixitaanka Soomaaliya ee ciidamadaas Itoobiya sidoo kale kulamada ayaa si gaar ah waxa ay u quseeyaan arinta koonfur galbeed hadii Itoobiya ay ka baxdo sidii ay saameyn ugu yeelan lahayd oo waliba halkaas ay ugu talaalaan lahayd hadii ay ka baxdo mabaadiida halkaas ay ku reebtay waxaana la warinayaa in saraakiishan ay yimaadeen kadib markii khilaaf cusub uu soo kala dhaxgalay madaxda koonfur galbeed si gaar ah madaxweynaha dawlad goboleedkaas Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen iyo sidoo kale saraakiisha Itoobiya ee ku sugan gudaha magaalada Baydhabo iyo guud ahaanba maamulka koonfur galbeed waxaana la sheegay in taasi ay soo dadajisay saraakiishan cusub imaatikooda Baydhabo iyo sidoo kale Xudur iyadoona saraakiisha ay kulamo la qaadanayaan ciidamadooda ku sugan gudaha Soomaaliya sidoo kalena u sheegi doonaan xilliga ay sida rasmiga ah Soomaaliya uga baxayaan sidoo kale waxa la filayaa in magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo ay gaaraan iyo degmooyinka kale ee ciidamada Itoobiyaanka ay ku sugan yihiin sida Luuq iyo sidoo kale Doolow iyadoo la warinayo in xaaladdu hadda ay tahay mid kulamadeedu ama kulamadu ay aad u sii xoogeysanayaan waxyaabaha looga hadlayana sidoo kale ay qusayso xaaladda Soomaaliya hadii ay Itoobiya ka baxdo sidii ay markaas isaga difaaci lahayd dagaalamayaasha al-shabaab oo iyagu ay ka cabsi qabaan in gudaha Itoobiya ay weeraro ka dhan ah dawladnimada Itoobiya ay ka fuliso sidoo kale gedo hadii ay gaaraan waxa la sheegay ama la wariyay in ciidamadooda ay la hadli doonaan saraakiishooda ugu sareeya halkaas ku sugan kulamo ay la qaadan doonaan sidoo kalena waa horgeyn doonaan qorshaha ka bixitaanka Soomaaliya maadaama loo diiday inaysan qayb ka noqon howlgalka cusub arintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo dhawaan wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya uu tilmaamay in ciidamadiisa aysan ka bixi karin gudaha Soomaaliya ama ciidamadooda waxaana uu tilmaamay hadii ay ka baxaan in ay wali taagan tahay qatarta Itoobiya ay ka qabto dagaalamayaasha al-shabaab waxa ku soo kordhay saaxiibayaal xogtan iyo sidoo kale kulamadan uga socda Baydhabo iyo Xudur deegaano kale oo Soomaalida kamid ahna la filayo inay gaaraan saraakiishan barnaamijyada wararkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa